gudoomiyahan maxkamadda sare aadan xaaji cali oo shir jirayd maanta ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu warbaahinta uga warramay hawlihii u qabsoomay muddadii koobnayd ee ay xilka hayeen. maxkamadda sare dacwadihii way socdaan, dadkii waa loo dhaqaajiyay. dacwadaha qaar baa sande horeba u sheegay muddo dheer socday, qaar baan cidnaba lagu qorin. dacwadaha qaar baa laga yaabaa inay bandings ka ahayn oo taagnaayeen, ama xilligii transition ka ahaato ama xilliyo ka horreeyay sanawo dheer. waxaa kaloo iyagana jira waxaanu structure-kii xagga maamulka ayaanu dubaqaabeyn ku samayn waddanka oo dhan, oo markii hore saacadaha ay maxkamadu shaqeeyaan way koobnayd. waxaanu iminka 7:15 ilaa 2 duhurnimo ayaanu xilligii shaqada ka dhigno. haddaa iminka dee adeeg u timaadaan xilligaa waa ka helaysaan garsoorayaashii iyo hawlwadeenadii iyo xeeraaliyaashii iyo hawlwadeenadii kale oo iyaguna shaqaynaya. markaa xagga structure-ka qaabilaada bulshada, maxay ahayday in dadka cabashooyinkooda la dhagaysto, maxay ahayday in dacwadaha la dedejiyo. waxaasoo dhan waanu bilownay annagoo ka wada shaqaynayna hay-adaha garsoorka hoos yimaado o dhan. markaa waa garsoorayaasha, xeeraaliyaasha iyo qareennada oo iyaga laftoodu waax muhiim ah oo hadii jeer dadka difaaca waa la socotaan sidii dacwadaha loo dadajin lahaa. adu eriyadaas oo dhan waa dubahabeyn xooga. sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay inay dib u soo celiyeen sawirkii iyo sumcaddii uu lahaa garsoorka Somaliland kadib markii ay dhowaan sameeyeen guddi baadhitaan oo soo baadhay tayada garsoorka, isla markaana ay isku bedeleen 87 garsoore oo ka mid ah garsoorayaasha dalka ka howlgala, kuwaasi oo qaarkood la dalacsiiyey qaar kalena dib loo ruqseeyey. isagoo gudoomiyuhu arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan ku samaynay isku bedel baaxad leh maxkamadaha hoose iyo xeeraalinta ku-xigeenada xeeraaliyaasha. markaa tusaale ahaan dadkay saamaysay waxay gaarayaan 130 qof 130 qof. markaa 87 garsoore iyo 10 xeeraaliye iyo maxay ahayday 87 garsoore waxaa lagu sameeyey dalacsiin iyo casilaad iyo bedelid. meeshiisi laga bedelo ayaa number 87 lagu sameeyey garsoore oo garsooreyaasha qaar ahaa heer degmo markii la arkay wanaagoodii. markaa intii aanan tallaabadan qaadin waxaa jira la yidhaha guddiga baadhida iyo dabagalka oo guddiga cadaaladda hoos yimaada. guddigaasaa 2 bilood shaqaynaysa, 2 bilood iyo badh. gobol kasta way tageen, waxay la kulmeen garsoorayaasha, waxay la kulmeen xeeraaliyaasha, waxay la kulmeen dadka adeega loo hayo bulshada, qaybaha kala duwan ee bulshada. waxa kale ay la kulmeen ciddii kasta ay u arkayeen inay feedback siinayso. marka iyaga reportkan diyaariyey, guddiga cadaaladana runtii dirtay. marka maxkamadaha hoose oo kale markaa 130 qof waxaa ku jiray waa la dalacsiiyey dadka qaar oo isagoo garsoore degmada ahaa ama tusaale ahaan xeeraaliye iskuutar dacwadun soo ooga ahaa ayaa garsoore maxkamadda gobolka laga dhigay, ama isagoo gobolka haba rafcaan la geeyey, ama isagoo garsoore caadi ahba gudoomiye laga dhigay. maxkamad degmo, maxkamad gobol iyo rafcaan baa gudoomiye looga dhigay. waxa kaloo waa dadkii wanaagsanaa. waxa kale oo dalacsiinta iyagoon ka mid ahaa isagoo laga yaabo district fog oo tuulo ah inuu ka shaqaynayay oo aada u fog ayaa lasoo transfer gareeyey markaa oo loo soo gudbiyey maxay ahayday magaalooyinka waaweyn. markaa taas waxa weeyaan dalacsiinta. waxa kaloo iyadana jirtay casilaad. dadkii aan mustawahoodu gaarsiisnayn heer ilaa area waxaa lagu sameeyey waa la casilay, oo isagoo garsoore heer rafcaan ahaa ayaa gobol lagu celiyay, isagoo garsoore heer gobol ahaa ayaa degmo lagu celiyay, isagoo gudoomiye tusaale ahaan maxkamadda gobolka oo kale gudoomiye ka ah heer gobol ilaa heer gudoomiye ahaatee ayaa la celiyo garsoora laga dhigay. ugu dambayn anigoo halkan message ka gudbinaya waxaan ugu baaqayaa annagu dhinacayagii haddaanu nahay dadkii mas-uuliyadda ugu sarreeyay garsoorka hayay, anigoo afkii guddiga cadaaladda ku hadlaya, gudoomiyaha maxkamadda sare ku hadlaya, ka dastuuriga ku hadlaya. waxaan nagu waajibay inaanu dadaal samayno, inaanu la dagaalano musuqmaasuqa, inaanu la dagaalano eexda, inaanu la dagaalano shaqa xumaanta, in adeeg fiican dadku halkan ka helaan. waa sababtaan isbedelada in reformkan weyn u samaynay.
inaan guddiyadan dabagalka guddiyada eegidda waxaasoo dhan way shaqeeyaan way hawlgalaan kormeerada kordhino dadka laga cabanayo wax ka qabanno kuwa shaqaynaya laftigooda baahidooda iyo wixii dhiba aan wax la qabanno bulshadiina waxaan doonaynaa u tabisaan bulshadiina inay iyaguna sidaan ugula shaqeeyaanoo ay joojiyaan laaluushka ay bixinayaan oo inay adeega ay doonayaan iyadoon cidina ka habranayn baa la siinaya aniga albaabkaygu wuu furan yihin guddoomiyaasha kale way furan yihin garsoorayaasha way furan yihin amar bay ku qabaan inay bulshada u shaqeeyaan lacagtaada iska hayso waa lagu adeegaya wakti dheer bay qaadanaysaa anigu maanta ma odhanayo maantaan perfect dhaho wax walba dhamayna ma odhanayo laakiin waddadeedii baan bilow iyo noobatisamkii ee axdii qabyaalada oo wax weeyaan halkaad odhan lahayd wartalow yaan garanayaa oo ku jira garsoorkii cid walba aday kuu fadhida qof walba aduu ku adeegaya qof waliba waa walaalka iyo habla waa walaalaha hablaha ka shaqaynaya ragga ka shaqaynaya wixii cabashaana maalinba awooddeeda taagteeda waxbaa ka qabanayna markaa bulshadii inay darafkeedii ay kasoo baxdo waajibkeeda arrintaasuna waa message aan gudbanayo doonay inay iga gudbisaan wakti bay qaadanaysaa dhaqan baa jira maxay hayday annagu waa inaanu shaqayno waajibkeega kasoo baxno sabirno qorshe la nimaadno bulshada halkaas baanu fadhinaa dan caamaanu haynaa dhinaca kale bulshada waxaa loo baahan yahay isbeddelka iyaguba ay arkeen ay ka markhaati kacayaan soo kordhay waddankoo dhan anuu caasimada kama hadlaayo waddankoo dhan inay la shaqeeyaan waddankoo dhan maanta dad u shaqaynayaa jooga shalayna way joogeen isbeddelkana aanu samaynayna ujeeddadiisa kama dambaysta ah waxay hayduun in la dardargeliyo in la dardargeliyo garsoorka in la dardargeliyo ay ahayd wax kale may ahayn ama ha la dalacsiiyo ama ha la casilo ama ha la bedelo transfer ha lagu sameeyo ama ruqsayn ha lagu sameeyo marka kaasina ilaa imakana 3 bilood ilaa maalinta xilka lagu wareejiyay aniga 3 bilood baa kasoo wareegay horena istaraatiijiyo hore u jiray istaraatiijiyadii iyo qorshayaashii hore waanu dhiirigelinaynaa wada shaqayn qodobka u dambeeyana waxa weeye hay'adaha aan idin sheegaya ama cadaaladda ama garsoorka waxaan principal ahaan u aaminsanahay wada shaqayn roolka iyo responsibilityga ama oodaha la kala leeyahay way kala duwan yihiin oo waxa weeyaan waaxdan garsoorka waa waax la siman fulintii iyo xeer dejintii madax banaanideeda ay leedahay qaybteeda gaar ay leedahay istiqlaaliyadeeda ay leedahay laakiin hay'adaha kale ee la shaqeeyana wada shaqayn fiican baa iminka noo dhaxaysa waanu sii dhiirigelinaynaa waanu wadaynaa insha allah marka intaasaan kaga baxaya aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan doonaya marka inaad messageka u gudbisaan muhiimadduna waxa weeyaan cadaaladda iyo garsoorka waa adeeg sida dhakhtarka iminka caafimaadka adeegunbaa loo tagaa halkana adeeg baa loo imanaya adeegka in la improve gareeyo oo la hagaajiyo oo dadka cabashoodii la dhegaysto taasunbaa noo principal iyo inaynu magaranaysaa bulshadeennana u adeegno dhammaan waxyaalaha bulshada cudurka kuwa oo dhan la dagaalamo waqti bay qaadanaysaa dadaal bay u baahantay juhdi bay u baahantay laakiin waddadaa ku taagnaano marka aad iyo aad ba umahadsantihiin waan idin salaamaya gabagabadii shirkan jirayd ee uu guddoomiyuhu ku qabtay xafiiskiisa ayaa saxaafaddu ay halkaasi su-aalo kala duwan ku weydiiyeen isaguna uga jawaabayay si kal furan su-aalihii la weydiinayay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha uga qorshaysan xeerka xuquuqda garsoorka waxaana ku jawaabay shaqadeeda maaha xeer dejin baa jirta laakiin waa inaynu voicekii iyo codkii la nimaado in xeerkii sida ugu dhaqsaa badan leh xuquuqda garsoorka la helo oo ka hadlayay iminka tusaale ahaan garsoora muddo dheer shaqaynaya 20 sano 30 sano maalinta uu ama retire garoobo ama xanuunsado ama uu fadhiisto ama la ruqseeyo wax xuquuqa ma leh xuquuq meel u taalla ma jirto marka xeerka madaxweynuhu runtii uu ballan qaaday in inta mandatekiisu jiro inuu ka hawlgalo uu dhamaystiro xeer dejintuna waanu kala hadallo uu ballan qaaday iyaguna weliba guddiga qaabilsan guddiga guddoomiyaheedii waanu kala wada hadalay in si bipartism ah oo aan ku salaysnayn xisbiyadoo dhan ka wada shaqaynayaan in arrintaa lagu wada shaqeeyo dabadaanu ka riixi doona haddii la yidhaahdo waxaananu rajeynaa in la helo xeerkaasaa markaa ka fargarayn doona oo ka hadli doona dhammaan xuquuqaha uu leeyahay garsoorayaasha iyo bahda kale cadaaladdu marka waanu rajeynaa haddii la yidhaahdo waana runtaa kugu waafaqsanoo maanta aada dayacaad badan baa jirta iyagoo dil xukumaya ee haddana magaalada lugeynayaan oo sukuurta horta berigii hore aan idila kaftamaya qofku hadduu caadil yahay banaanku iska lugaya sida caadiga saxda kole dad caadil tahay oo
lagugu ogiyo cadaalada waayo cidnaba cid waliba way ogtahay inaad cadaalad filayso marka laakiin de imika waxa soo baxay khataro kale xagga amniga oo la iska dhegatiri karin la iska indhatiri karin marka in kuwa laga gaashaanto wax la siiyaa waa waajib nasaaran inaga oo magaranaysa de waanu wax maalinba taagba la rugmaado wixii aan kala qaban karno anagoo la kaashanayna hay'adaha kale qaranka gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda sare mudane aadan xaaji cali waxa uu bulshada ugu baaqay isla markaana u soo jeediyay inay ka daayaan laaluush bixinta ay caadaysteen isla markaana aanay ka doonin cadaalad marna aanay iyagu bixinin laaluush taasina ay nusqaan weyn ku tahay hanaankii horu socodka cadaaladda dagaal almis Somaliland Space Channel Hargeysa